Abta igu xiran waa idin salaamay salaan kadib geedka ayaa garanaya geedka idin muuqda sida uu baxaya ayaa garanaya kulay rag badan way garanayaan geedka rag badan baa naga daaqa sida xoolaha maanta marka waxaan rabaa ragga in loo duceeyo ragga geedka daaqa qarashkooda ku beela waxaan ku iri de ku cibaado seega ku dhaqaale seega ku xila seega waa la ogyahay dad badan oo cuna dadka horta dan geedka u faa'iideeyay waa qaad waxaan tagay meel uu qaad ka baxay beera aan booqanayay aniga marka wax muhiimada ima lahayn oo mowduuciyo kama aan soo sameyn beertaan oo dhan qaadka ka baxa yacni mowduucyadii ay ugu tala dadka wareysiyada ka soo qaadi jiray beeraleyda ah ma aanan ka soo qaadin waayo waxaan ogahay geedkan dadkeena dhibaato maan inuu faa'iido u lahayn laakiin kilibkan waxaan ugu tala galay inaan u duceyno dadka geedka lacagtooda ka bixinaya anigu idma aflagaadeynaya laakiin de xoolaha idin dhaama sababtoo ah xooluhu de wax jirkooda anfacaya ay u daaqaan yacni waxay daaqaan dhirta ay daaqaan waa dhir jir ahaan iyo nolol ahaanba ay ku noolaanayaan laakiin adigoo bili-aadan oo ilaahay ku karaameeyey oo waxaan ku aan xayawaan ahayn sida xayawaanka kale inaad u daaqdo oo weliba uu daraagis yahay dhaqaale burbur u yahay waxaan leeyahay ragga runtii nasiib xumo aad u xun baa haysa ilaahay ka madoobeeyo kulay dad baa beerto ka macaasha anuu ma kala sheegi karo oo ma kala xaarantimay karo kulay cid kasta way fahmi kartaa aqli leh yacni dadka markaa ka ganacsanaya kulay dhaqaalahooda wuxuu noqonayaa xalaal iyo xalaale laakiin kuwa ka ganacsanaya beeranayna waxaan leeyahay kulay wax fiican dadka uma beeraysaan burbur iyo dhibaato ayaa dadka maxay tahay u beeraysaan qoysas badan baa ku dubo rag badan baa ku mustaqbal beelo intay asaagood ay reer leeyihiin oo nolol leeyihiin oo caruur leeyihiin oo horumar gaaraan mid adduunyo mid aakhiraba oo cibaadaystaan iyagu waa ku cibaado seegeen waana ku horumar seegeen ilaahay waxaan ka barinay oo ilaahay uga baryana inuu soo duceeyo ragga in ilaahay ka madoobay kulay dumarna way jiraan waa ayaan darro kale in la helo dumar subxaanallah ilaahay ima tusin weliga gabar qayilaysa laakiin ragga u badan rag iyo dumarba waxaan leenahay aanu soo ducon in ilaahay ka madoobeeyo